السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada janaalka Shariifka 252. asxaabay maanta doo ilaahay raado waxaa rabaa inaan idin tuso sida Facebookga historygiisa loo soo dhigo muuqaal dheer. sidaa ka warqabtaan shirkadda Facebookga maaragtay muuqaalada la soo dhigay historygeeda waxay u tala gashay inayna ka badan 26 second. tusaale ahaan haddii aad isku daydo inaad soo dhigto muuqaal soconaya in ka badan 26 second waxay ku dhihi doonaan aabaha sifadiisu waa adayg hooyada sifadeeduna longer videos get shortened to 26 second yani muuqaalada dhaadheer waxaa laga dhigi doonaa 26 second ayaa lagu soo koobi doonaa ayaa laga dhigi doonaa yani muuqaalka hadduu 26 second ka badan yahay uu ka dheer yahay maaragtay kaliya waxaa laga qaadan doonaa 26 second oo isaga ka mid ah inta badanna 26 second ee hore. laakiin adi 26 second oo waa maamuli kartaa haddaad taabtaa halka maqaska oo ku yaalo 26 kaas marka hore sida defaultiga ah ugu talagaleen Facebookga 26 second oo hore waay. marka waxaa geen kartaa 26 second oo dhexe haddaad rabto ama 26 second ee ugu dambeyso. marka muuqaalkaaga wuxuu kaa noqon doonaa half ayuu kaa noqon doonaa mar walba ma kuu dhammaystirmi doono. marka muuqaalkan maanta waxaa rabaa inaan idinku soo gudbiyo farsamo oo aad uga guuleysan karto caqabadan maaragtay aad taagan. yani farsamadan waxay kuu sahli doontaa inaad soo dhigto Facebookga muuqaal soconaya 26 second ka badan. marka ugu horreyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar janaalka, sidoo kale like saar muuqaalka, asxaabtaada u share gareey. aad baad u mahadsan tahay. muuqaalkanna isku day inaad daawato ilaa iyo dhammaadkiisa. okay, marka ugu horeeya asxaabay waxaa galaysaa messengerka markaa gasho waxaad sii gali doontaa ama taabanaysaa mid ka mid ah asxaabtaada ayaa taabanaysaa meesha sawirada iyo muuqaalada qofka looga diro oo calaamada galeriga iconka galeriga. kadib hoos ayaad u bixi doontaa, waxaa raadin doontaa muuqaalka aad rabto inaad historyga soo dhigto. waa taabanaysaa, markaad taabato waxaa kuu soo bixi doona sida tan edit iyo send ayaa kuu soo bixi doona. kadibna waxaad taaban doontaa waxaadna kasii dooranaysaa your history meesha ay ku qoran tahay your history ayaa taabanaysaa. markaa your history taabatid wuxuu ku leeyahay add to your history, yani ma rabtaa in oo historygaaga lagugu daro ama historygaaga in la dhigo ma rabtaa. marka haddii aad rabto waxaad taaban doontaa add ayaa taaban doontaa. kadib waxaa halkan kugu soo qormay added to your history oo micnaheedu yahay historygaagi ayaa la dhigay historygaaga ayaa la dhigay. haddii aad Facebookga soo gasho kadibna your history ayaa taabanaysaa oo aad arkaysaa muuqaalkii sidaas ayuu ku dhigmay historygaaga Facebookga asagoo aan waqtigii waxba laga jarin. ma fahamtay? muuqaalkeen maanta intaas ayuu ka egyahay. haddii aad ka heshay like saar, sidoo kale asxaabtaada u share gareey. wixii aragtidaada ah ee ku aadan muuqaalkan ama sidoo kaleete tala ah oo aad usoo jeedinaysa janaalka qaybta commentiga noogu reeb ama nagala soo xiriir baraheena bulshada ee kale. aad baad u mahadsantahay.